munaasabadan oo shahaadooyin iyo abaalmarin lagu guddoonsiinayay in ka badan 140 arday oo dhameysatay waxbarashada heerka koowaad kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Al-Hilaal oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha dalka Suudaan culimo u diin aqoon-yahano waalidiin ardayda qalin jabinaysa kaasi uu soo qabanqaabiyay maamulka jaamacadda Al-Hilaal ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho gudoomiyaha jaamacadda Al-Hilaal Professor Ibrahim Sheekh Cabdi Waaxid oo ka hadlay munaasabada ayaa kula dardaarmay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Al-Hilaal inay sii kordhiyaan aqoontooda ay jaamacadda Al-Hilaal ay ka qaadatay soo saarida ardaydan hadda fadhida iyo sida maaragtay ay ugu guuleysatay inay soo xigto xiriiro jaamacadeed oo caalami ah oo maanta markaada tadkiin in hortiina ay ku ballan qaadeen inay ardaydan siinayaan yani deeqo waxbarasho oo dhammaan kulliyadaha naga qalin jabiyay ah Professor Anwar Ciise oo ka socday jaamacadda Budana dalka Suudaan iyo Professor Ibrahim Maxamed Shariif oo isna ka socday jaamacadda Niyaal ee wadankaasi Suudaan ayaa si wada jira ugu deeqay ardayda dhameysatay waxbarashada heerka koowaad deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah جامعة البطانة يحفظ كثير من المفردات إن شاء الله يتحدث إليكم بهذه الكلمة وأنا كأنما جندت نفسي سفينة لهذا البلد في السودان أحكي عنه كثير جدا وكثير من الإخوة تحدثوا أن الصومال agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Cabdi Shakuur Xasan Fiqi ayaa ku booriyay ardaydu in ay wax u taraan dalkooda hooyo ayna kordhiyaan tayada waxbarashadooda marka ugu horeysa waxaan u hambalyeeyaa ardayda ka takharujtay jaamacadda qadiirka ah ee qiimaha badan iyo waalidkooda iyo ummadda Soomaaliyeed ee ay wax u barteen oo ay ugu adeegayaan waxay barteen ayaan u hambalyeeyaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Mukhtaar ayaa sheegay wasaaraddu ay ku dadaalayso sidii dhalinyarada ka soo qalin jabinaysa jaamacadaha ay ugu dhiirigelin lahaayeen waxbarashadooda iyo sidii shaqooyin ay u heli lahaayeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay u idman tahay dhammaan habka iyo nidaamka iyo sharciga iyo shuruucda lagu shaqeynayo iyo siyaasadda shaqada inay dejiso wadankan si loo horumarin lahaa Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho